Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 2. In our today's lesson, we are going to learn conversation 2 out of 100. In our previous lesson, which was conversation 1, we discussed conversation 1 out of 100. If you haven't watched that lesson, please go and watch that lesson. After that, come to this lesson. Ardayda qaaliga ku soo dhawaada Moonlight Academy kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka labaad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa conversation 2 out of 100 oo wadasheekeysigii labaad. wadasheekeysigii koowaad casharkii koowaad ayaan ku soo qaadanay. fadlan haddii aadan daawan casharkaas ordoo soo daawo kadib u imow casharkan. sidaan hore u sheegay, buuggan wuxuu ka kooban yahay 100 conversation mise 100 wadasheekeysi. casharkan waa casharkii labaad, waxaan ku qaadan doonaa conversation 2. sida caadada inoo ahayd, conversation haddii la yiraahdo waxaa laga maarmaan ah laba qof. aan u qaadano qofka koowaad A, qofka labaadna aan u qaadano B. marka wadasheekeysiga wuxuu u dhaxayn doonaa A iyo B. Where do you live in? Where do you live in? Where xagee do you adiga live ku nooshahay in gudaheeda. marka where waxaa loo adeegsadaa goob, you na waa adiga, live na waa nolol, in na waa gudaheed. marka haddii aan isku xirno macnaheedu waa where do you live in? adiga xageed ku nooshahay. si aad uga jawaabtid waxaad leedahay I live in. I live in. I aniga live waxaan ku noolahay in gudaheeda. kadib magaalada aad ku nooshahay ayaad gelinaysaa halkan. I live in waxaan ku noolahay, kadib magaalada aad joogtid mise magaalada aad ku nooshahay. I live in, tusaale, I live in Muqdisho, waxaan ku noolahay Muqdisho ayaan ku noolahay. I live in Muqdisho, waxaan ku noolahay Muqdisho. Where do you live in? xageed ku nooshahay? I live in Muqdisho, waxaan ku noolahay Muqdisho. Which district do you live in? Which district do you live in? Which district do you live in? Which taba district degmo do you adiga live ku nooshahay in gudaheeda. Which taba district degmo do you adiga live ku nooshahay in gudaheeda. haddii aan isku xirno macnaheedu waa which district do you live in? degmade ku nooshahay. Which district do you live in? degmade ku nooshahay. si aan uga jawaabno waxaan leenahay I live in. I live in. hore ayaan usoo aragnay I live in. I aniga live ku noolahay in gudaheeda, kadib degmada aad ku nooshahay ayaad sheegaysaa. tusaale waxaan dhihi karnaa I live in waxaan ku noolahay waa beri district. degmada waa beri ayaan ku noolahay. I live in waxaan ku noolahay waa beri district. degmada waa beri ayaan ku noolahay. I live in waa beri district. tan waxay ahayd I live in Muqdisho, waxaan ku noolahay Muqdisho. waxaad u isticmaali kartaa haddii aad doonaysid inaad sheegtid magaalada aad ku nooshahay, degmada aad ku nooshahay, xaafadda aad ku nooshahay, wadanka aad ku nooshahay. waxaad leedahay I live in waxaan ku noolahay, kadib wadanka ayaad raacin kartaa, magaalada ayaad raacin kartaa, si lamid ah waxaad raacin kartaa degmada, si lamid ah waxaad raacin kartaa xaafadda aad ku nooshahay. I live in adeegso, kadibna waxaad raacisaa goobta aad ku nooshahay. With whom do you live? With whom do you live? With whom
do you live? With whom do you live? yaad la nooshahay. With whom do you live? yaad la nooshahay. With whom do you live? yaad la nooshahay. marka si aan ugu jawaabno waxaan leenahay I live with. I live with. tan waxay ahayd I live in. tan waa I live with. marka farqiga u dhaxeeya ayaa ah I live in waxaan ku dhex noolahay, I live with waxaan la noolahay. marka I live with haddii aad dhahdid waxaad muujinaysaa qofka aad la nooshahay. I live in haddii aad dhahdidna waxaad muujinaysaa goobta aad ku nooshahay. I live with waxaan la noolahay. tusaale waxaad raacin kartaa I live with my parents waxaan la noolahay waalidiintayda. I live with my parents waxaan la noolahay waalidiintayda ayaan la noolahay. tusaale ma doonayno inaan dhahno I live with my parents, waxaan doonayaa inaan dhaho I live with my family. I live with my family waxaan la noolahay familkayga. I live with my family waxaan la noolahay familkayga. ka waran haddii aad la nooshahay qaraabadaada, waxaad leedahay I live with my relatives. I live with my relatives waxaan la noolahay qaraabadayda ayaan la noolahay. marka relatives macnaheedu waa qaraabo. waxaad kaloo adeegsan kartaa haddii aad la nooshahay walaashaada, waxaad leedahay I live with my sister waxaan la noolahay walaashayda. I live with my sister waxaan la noolahay walaashayda. waxaad kaloo adeegsan kartaa I live with my brother. I live with my brother waxaan la noolahay walaalkayga. haddii aad la nooshahay asxaabtaada, waxaad leedahay I live with my friends. I live with my friends waxaan la noolahay asxaabtayda ayaan la noolahay. asxaabtayda ayaan la noolahay. ka waran haddii aad keligaada nooshahay, waxaad leedahay I live alone. I live alone keligayga ayaan noolahay. yacni qof ila nool oo aan la joogo ma jiro. Okay, see you later. Okay, see you later. Okay, hagaag. See you later is arag dambe. See macnaheedu waa arag, you-na waa adiga, later-na waa dib. See you later is arag dambe. Okay, hagaag. See you later is arag dambe. Okay, bye. Okay, bye. Okay, hagaag. Bye. nabadgelyo. Okay, hagaag. Bye. nabadgelyo. This is the end of our today's lesson. I hope inaad fahantay casharka. casharkana waxaa idinla socodsinayay aniga oo ah Cabdikariim Xasan. waxaan ku kulmaynaa casharka xiga oo ah casharka saddexaad conversation 3. sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye.